runtii dalkan meel uu ka yimid waa loogyahay doorasho xarig dhiiba oo la isku bedelo oo si nabad ah isu doorto dalkan soo maray waana loo bagay arinteeda hadii la dhihi waayo inta doorasho la isku dhiibo la isku bedelo la ogolaan waayo wixii hore soo dhici jira dhaca taa ayada dhibaato waayo marka anagu waxaan leenahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan dhaweysido lagu doortay uu ogyahay رئيس الوزراء dalkan ka soo ahaa waliba anoo lagu haysto 250 ku ansixiyay lagu haysto ilaa waxba ka dhimanaa inta ansixiyay ra'iisul wasaare noo ahaa madaxweynaha loo doortay waa loo banaan baxay marka maantana waxaan ka rabnaa in sidii oo kale inta tartanka haduu ku guuleystana hadana sidii loo banaan baxa haduu tartanka ku guuleysan waayana sidii labada madaxweyne oo ka horeysay asiga gacmaha u qabteen ninka guuleystay inuu gacanta qabtaan ka rabnaa runtii saasana dalku wax ku gaaraa laakiin madaxweynaha waxa iga muuqata in hadina gadaal u noqdaysan fiicneen September ayaan hoogaa markaan iskhilaafnay inkastoo saaxiibkii Xasan Khayran oo hadda fadhiyo shirki aan Kismaayo ku qabanay madaxweynaha waxa la yiri maal shirkid maamul goboleed wuxuu November 17 intii laga gaarayo shir ma qabanayo November 17 marka aniga doorashadeedu ku beegneedahay marka madaxweynaha aniga waa noo tiriyay aniga waa u tirinaynay marka tiradiisa ogolaado aniga waa ogolaanay marka tiradanada markii la gaaro laakiin hadii madaxweynuhu uu rabo in asigana dadka u tiriyo asigana aan loo tirinin ila ma saxsana madaxweyne Xasan Sheekh asiga waa u tirinayay madaxtooyaha soo baneeyo saha yeelo laha aniga dawladda madaxtooyaha soo baneeyo ma dhihine madaxweynuhu doorashada dhaxda soo dhigo hadii laakiin uu yiraahdo dawladniga sida daay ninka saaxiibkii uu sheegay ana dheela ana garsooro noqona dadka ila dheelaan ana keensana ma shaqeynayso marka waxaan leenahay aniga ciyaartooy si ka fiican inay la ciyaaraan rabnaa madaxweynuhu ciyaartooyda ha ogolaado dadka Soomaaliyeed taas garsooraha noogu noqdaan laakiin haduu yiraahdo ani kaliya dheela meel ka shaqeynaysa male madaxweynaha waxyaalo u soo tatabay oo waxa jira dadka Soomaaliyeed ay furuntii nabad ka aadeen taa dhibsana laakiin waa sheega maamul lagu tartamay doorashadiisa ma jirto kulligood waa la isku qabsanayay koonfur galbeed si la isku doortay waa la ogyahay musharax lixir ilaa haduu xiran sharci daro ku xiran 2 sano wax la jiro xiran musharax u ahaa waa haduu dambi leeyahay inuu issharaxo banaankii maada loogu ogolaado laakiin markii la ogaaday nin tartami karo oo bulshada qiimo ku leh markii la arkay hal xiraan leeyahay waa la xiray qof la tartantay ma jiro mutartamiyaal kalena inaysan tartamaan waa loo diiday galmudug sidii aad waa loo ogyahay dadka tartami lahaa wixii la qashqashi karaa la qashqashay doorashada waa la qabtay hadana ayadana waa la sameeyay waa la ogyahay meesha la yiraahdo Hirshabeelle yaa ku tartamay ilaa ku dhaariyay walaalena ma haysano maamulada dada islaale jifa loo degan yahay hal inoo dadkii kamid ah meesha joogo qof dhibaato ku qabto ma jirto laakiin tantii la wada lahaa waaye in lagu tartamo waayto tan in lagu tartamo waayo gedo hadaan ka soo qaadno daani hadda odayaan dadku hayna ma dhigi kare laakiin inaan hadda aan u weynaa u maleena ilaahay u naxariiso madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf xilligiisa gedo xure ahayd walaha iyo doolow iyo qof haystay ma jirin ilaa hadda oo ka horeyso dhulkaas dagaalka ma dhicin madaxweyne inuu hadda meesha ayada anaga jidka naga xiran yahay kiilada sokorka $4 ka joogto waajid iyo qasax dheer iyo ay ka joogto oo intaas jidka xiran shabaab haysto in ciidankii qaranka inta la aruuriyo diyaarad lagu qaado diyaaradda lacag lagu dhiibo hub la dhiibo wiilasha la soo tababaray dhul xura dagaal loo geeyo ma taasa dawladnimo keenaysa ilaa ku dhaariyay ciidanka hadii barul sheegayo jidadka loogu la furo anaga rafaadan haystay ma ciidankan guryahana hal u xiraayo diyaaradana ku tagaayo gedo jidadkaana furi karno shabaabna naga celinaynin intee la geeyna masaasa dawladnimo noqonayso madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa ay tusaysaa inuusan tartan rabin guddigan uu soo saaray waxa kale oo si tusaysa mar hadduu maanta yiri jadwal la keeno inaan lala tartami doonin u muuqato
marka saasna ma shaqeynayso dawladnimana ma noqonayso dalka haddii lagu tartami waayo ayuu duma haddii la tartamo dalkan ma dumaayo dalka waa dhisma nabadan iyo wanaagan waxa lagu soo gaaray mahadiya ka gaarto madaxweynayaasha hadda inta fadhiyaan ogolaadeen in lala tartamo si nabadan halka ku kala wareegay ayuu lagu soo gaaray madaxweynaha waxaan ka rabnaa sidii saaxiibadiisa ka horeysay yeeleen inuu yeelo haddii taas la waayo dhibaato way runtii marka waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin aniga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha runta loo sheego musharaxiina wax diidan ma anaga waxaan ka hadloohaynaa dalka wanaagiisa way dalka wanaagiisa dalkan waa soo dhisnaa waa la soo arkay kaliya taliye ma aadi karnaa hadda lama aadi karo saan aaminsana aad iyo aad u mahadsantihiin nabadan ilaahay ka baryeynaa in la isdoorto nabad la isku doortaan ilaahay ka baryeynaa madaxweynahana waxaan ka rajaynaynaa inuu ogolaado in la isdoorto nabad la isku doorto guddi la isla ogol yahay laga heshiiyey dadkoo dhan ay ogol yihiin in la sameeyo saaxiibada maamulada joogaanna sida cabdiraxmaan abshakuur sheegay waaye doorasho hadda haddii inay saas ay ku qabtaan ay ka fekeraan waxay noqonaysaa kursiga shalay waa idin xoogay idinkana ii xooga waa lamana yeeli karo taas